له أما بعد هذا الكيجو وحقوقه بين هاي أنت أوجاس ويري وحبة داري مايو محضة أولو ذاك سيدي حالي مركانو كزودني جرونك نيروبي انترناشنال جوما كينياتا انترناشنال ايربورت جالية نيروبي أما إيست أفريقيا أي نوجسو دويسي waxaan u mahad celinaynaa safaaradda Soomaalida safiir keeda oo tasiilaad fara badan noo sameeyay Maxamed Cali Americo waxaan u mahad celinaynaa guddiga jaaliyadda Khaatumo State iyo Soomaalidii kale ee nagu soo dhaweysayba Muqdisho ka nimid Muqdisho wuxuu ahaa safar aanu ku maraynay dhammaan inta danaha Khaatumo State of Somalia ay la wadaagto safarkaas oo bilaabmay dawladda deegaameedka Soomaalida Itoobiya sida ugaasku sheegay waa mahadinaynaa sidii wacnayda noo soo dhaweeyeen dawladda Djibouti dawladda federaalka ee Soomaalida oo xiriir wanaagsan aanu la soo sameynay wada shaqayn iskaashi dawladda goboleedka Khaatumana ay si toos ah u hoos timaado Khaatumo State of Somalia ma aha maamul goboleedada sheegta inay ka madax bannaan yihiin dawladda ku meel gaarka ah waxaanu aaminsanahay midnimada Soomaaliya waxaanu aaminsanahay caasimadda Soomaaliya inay Muqdisho tahay waa ku faraxsanahay dadkii Soomaaliyeed ee aanu ugu nimid Muqdisho sidii wacnayd tulimada lahayd Soomaalinimada lahayd ee ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baan u mahad celinaynaa waa ku faraxsanahay nabadgeliyada ka muuqatay Soomaalinimada ka muuqatay isdhexgalka ka muuqday dardarka lagu waday nabadgeliyada iyo soo celinta nabadgeliyada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu aaminsanahay haddii ayan Muqdisho hagaagin inaan meel kale oo Soomaaliya ay naga kareyn Soomaalidu waa hal jid waa hal qof haddii madax uu xanuunayo jirka intiisa kalena waa xanuunsanaya haddii Muqdisho xanuunsanayso Soomaaliya inteeda kale weligeedba maamul goboleed ha sheegtaan waa ay xanuunsanayaan waxaanu la garab taaganahay dawladda federaalka Soomaaliya in nabadgeliyo caasimadda ummadda Soomaaliyeed ugu soo cesho waxaanu la garab taaganahay in qarannimadii Soomaaliya lagu soo cesho waxaanu la garab taaganahay in sinaan iyo cadaalad ay Soomaaliya ku noolaato aad iyo aad baan u mahad celinaynaa waxaan halkan fariin in dhaweydba aanu direynay aanu ka raacinaynaa labada maamul goboleed ee dhinacyada naga xiga ee Puntland iyo Somaliland labaduba in ay dhibaatada ay nagu hayaan midina uu hadalka iyo ayda iyo aflagaadada iyo ilaahay aduu ku roon yahay aan ujeedada lahayn uu ka shubayo golo kasta uu istaago waa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed waan uga digaynaa inuu ka haro waxaanu leenahay inta aadan ku guban ka har Khaatumo State of Somalia dal idin kama dhaxeeyo maamul idin kama dhaxeeyo waa maamul ka gooniya maamulka aad ka taliso waxaanu jecelahay inaad danahaaga ka adkaato inaad dadkaaga urursato inaad nabadgelyadaada ka shaqaysato inaad ceelkaaga biyaha ee daroor ka qodanayso aad dhamaystirato hawlaha iyaga aad faraha kala baxdo qoliyaha Somaliland waxaanu u sheegaynaa iyana in ay ciidankooda ku jira meelaha qaar ka mid ah dhulka Khaatumo State of Somalia inta ay nabadgelyo qabaan inay kala baxaan waa ay ka soo dhamaatay dadka Khaatumo dulqaadkii ay u dulqaadanayeen wiilan aan dhulkan u dhalan sida xooga ku jooga dadkoodii baabi'inaya xirxiraya dilaya caburinaya ka qaadaya xorriyadii insaanku uu xaq u lahaa waqtigeedu waa soo dhamaaday dadkani u dulqaadan maayaan inta aan nabadgelyadu faraha ka bixin inta aan la isnicin inta aan dhibaato intan ka badan dhacday ayaan imaan
waxaan u sheegaynaa maamulka Hargeysa ka taliya odayaashooda in ay si nabadgeliye ah dhulka iyaga uga baxaan waxaan aad uga xunnahay maalin kasta odayaal in la soo tubo warbaahinta odayaashaasoo sheegaya inay nabadgelyo doonayaan odayaashaasoo sheegaya in ay rabaan in xal loo helo dhibaatada ka dhaxaysa maamul goboleedka Soomaaliland iyo maamul goboleedka Khaatumo haddana leh ciidanka iyagu dhulkiina ayuu joogayaa oo xoog ku joogaya haddii aad nabadgelyo rabtaan nabadgelyadu siday ku timaado waynu naqaanaa nabadgelyada sida lagu helo waa la yaqaanaa wadooyinka loo maro waynu garanaynaa ma aha software hadeer lagu sameeyay Hargeysa oo la isbarayo sida loo isticmaalo fadlan Soomaalidu waxay tiraahdaa dhac dushii lama hadlo dhulkayaga iyo dadkayaga nooga dhaxbaxa wax inta dhaafsiisan oo dhibaato oo inaga dhaxeeya ma ay jiraan markaad ka baxdaan dhulkayaga wixii kale ee wada hadal ee la gali karo waa ay furanta iyana waxaan u sheegaynaa waa ay soo dhamaatay waqtigii qabiilooyinku ay isku taageeri jireen dhibaatada Soomaaliya waa ay ka hana qaaday arrinka ka hana qaada intaydan si adag u baran ka hana qaadaanu idin leenahay ummadda Soomaaliyeed ergaan u diraynaa cidii afgaranaysa dadka aanu sheegayno ee maamul goboleedyada dhinacyada naga xiga in inta aan dhibaato xoog leena dhexmarin inay la hadlaan oo yiraahdaan dadkan iyo deegaamadan uga ka baxa ka daaya hadal xumada uga baxa dhulkooda idinku tiina ka adkaada tooda waa ay ka adag yihiin ummadda Soomaaliyeed waxaanu kaloo leenahay maanta waxa timid waqtigii la doonayay in qarannimadii Soomaaliya la soo cesho in qabyaalada laga baxo in qabiilku hadduu wax qabsanayo wanaag uu ku qabsado Soomaalina uu wanaag ula yimaado laakiinse xumaantii la isku raaci jiray ee la isku taageeri jiray waa ay soo dhamaatay dantu waxay inoogu jirtaa midnimo nabadgelyo iyo horumar wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh